waxaa maanta caalamka laga warhayaa waa dowladda Soomaaliya oo heshiis la galaysa dalka Itoobiya arinta badda. Haddaba waad ogtihiin Itoobiya ayaa waxay isku dayeysay inay muddo in ay hesho marin badeed oo ay ka dhisato dekad ama ay ka soo marsato wax walba ayada ay jeceshahay dhulka Soomaaliya iyo baddeedaba. Haddaba Soomaaliya ayaa waxaa heshiis la galayaan baa la yiraahday maalmaha soo socda ama asbuucyada soo socota oo la isku arki doono mar kale Turkiga si heshiiskaasi loo dhameystiro. Dowladda Turkiga ayaa waxay isku dayeysaa in ay dhexdhexaadiso Soomaaliya iyo Itoobiya si ay ayaga laftigooda heshiis daacada oo sax ah ay u wada galaan Soomaaliya iyo Itoobiya. Haddaba Soomaalida waa la ogyahay run ahaantii markii badda la soo hadal qaado in ay aad iyo aad u kacaan run ahaantiina cadowga ay iska fiijiyaan run ahaantii. Waxa ma kula tahay adiga haddaan ku weydiiyo su'aal in ay Soomaaliya heshiis la gasho dalka Itoobiya si ay u hesho qayb ka mid ah baddeena diyaar ma u tahay? haddaan diyaar u ahayn commentiga hoosta waxaad igu soo qortaa diyaar u mihi oo waxaad adiga jeceshahay oo fikradaada sidaad u aragto noogu soo gudbi. Sidaad la socoto dowladihii hore ee dalka Soomaaliya dowladda Maxamed Siyaad Barre iyo kuwii ka horeeyayba waxay mar walba dakhligooda ugu weyn ay ka soo geli jireen waa dekada iyo aeroboorka iyo kheyraadka badda iyo kuwa dhulkaba. Haddaba Soomaaliya dowladaheedu waxay dhiseen waagaas warshad kalluunka lagu sameeyo oo loo suuq geeyo caalamka isagoo gasacaysan. maantana intaasoo idilna gacanta kuma hayaan dowladaha maanta jiro oo kulligood waxay siiyeen the private sector ama ajaanib ama dowlado kale ayaa farta laga geliyay. maanta adiga ahaantaada oo Soomaali ah aad og tahay inaan badda laga mari karin, sideed u aragtaa in heshiis lala galo Itoobiya ama loo saxiixo heshiis lagu siinayo qayb ka mid ah badda inay dekad ka dhistaan? taas ayaa rabnaa inaan ogaano shacabkeena iyo siday dareemayaan. bal caalamka wararkoodii oo idil aad ka muuqatid gadaal maanta oo dhan waxaa laga wada hadlayaa in ay dhexdhexaadin isku afgarteen heshiis Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya. waa anigoo Nabiil Xasan Nuur ah, barnaamijkana waa barnaamijkeena share gareeya na follow gareeya, ku soo dhawaada halkana kala socda wax walbo oo quseeya arrimaha Soomaaliya.